wafdi culimo ah oo uu hogaaminayo Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil iyo Sheekh Maxamed Cali Biixi ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay duleedka galbeed ee magaalada Ceerigaabo waxaana culimada soo dhaweeyay madax dhaqameed xildhibaano culimo diin dhalinyaro waayeel iyo wax kale soo dhaweyntan soo dhaweynay culimadeena oo maanta inoo timi Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil iyo Sheekh beledkeena Sheekh Maxamed Cali Biixi waxaan leenahay tacsiina waa u diraynaa Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil xaaskiisii oo wiigan ku dhimatay dalka Turkiga waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun culimadan maanta inoo timi sharafta leh waxaan ku mahadnaqaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga mahadnaqaynaa sida fiican inuu hadaynu gobolkiisa naagnahay inuu soo dhaweynay iyo sida aynu uga wada qayb qaadanay iyagana waxaan leenahay ku niyad samaada niyadda wanaagsan iyo khayrka weyn iyo shaqada weyn ee la socotaan ee diiniga ah ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idin soo waafajiyay Ilaahay idin soo fudeeyay waa idin ku soo dhaweynayna waynu baahidoodu aad iyo aad bay u badnayd aynu doonaynay dadka khayrka sida ee inoo wada waxaanu leenahay culimada markii horena waa noo wadeen haddana waxaanu aad iyo aad u jeclaysanaynaa inay noo duco dalkoo dhanna u duceeya gobolkana u duceeya meelo badan oo qodxaya nagaga taagtaagan yihiinna nooga duceeya aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waxaan leeyahay ku soo dhawaada gobolkiinii ku soo dhawaada degmadiinii Ceergaabo weli intan oo haldoorkii isaguma iman taasina waxay ku tusinaysaa sidaynu u jecel lahay culimadeena iyadana waanu ka tacsiyadeynaynaa waxaanu kale oo sheekh aanu ka xunahay xarigiisii la xidhay aad baanu runtii uga murugoonay markii la xidhay halka laga kaxeeyey ase yeeshee ilaahay waa fududeeyay markiiba waa la soo daayay annaguna ilaahay waa ku shukrinaqnay waxaanu ku soo dhaweynaynaa culimadeennii waaweyneed ee gobolka waxaanu ka rajaynaynaa inay noo duceeyaan maalintii dhaweydee waa la xidho waynu qaylnay aad baynu u yar qaylinay waana ka naxnay laakiin maanta waxaynu ku faraxsanay waxaynu maanta ku soo dhaweynay diintii islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaynu insha allahu tacaala soo dhaweynaynaa sheekh maxamed sheekh ismaaciil iyo sheekh maxamed cali biixi iyo culimada la socota الله دورو هبركيو إلهي وحنو ويديسانينا إن إلهي حفتيو إلاليو نجانا سودو وينتا إن سودو وين علماء عشر إلهي نقصيو مرحبا ومرحبا بانو إذن لنا ألف مرة الحمد لله رب العالمين ما أنت هدان سنه رسولك عليه أفضل الصلاة والسلام سنه أن كسودو وين إنه سياسة بانو كسودو وين تري هديتا من نجرها عيتا إله ونجرنا تناجر بانو كيري نواهمنا عادي عاد بانو فرحسناي بوقشودودا خيرغا كل خير بان كفلينا mar hadii culimadu ay meel u boqosho waxa laga filaa waa khayrun عادي عاد baan ugu faraxsanahay sharfayna waa sida loo sheegay dad badan baa la soo dhaweyn jiray laakiin runtii waa soo dhaweynta ugu qaalisanayd aad baan ugu mahadnaqayaa reer Ceergaabo runtii sida ay ugu soo baxeen oo culimadooda u ikraameen oo u soo dhaweeyeen aad baan uga mahadnaqaynaa runtii waxaanu soo dhaweynaynaa labada sheekh markii horena runtii si degdega naloo ka qaaday markii dambana aanu ku soo dhaweynay annagoo xunguruufo badan ay jiraan gudaheedu oo xunguruufaha badan ay iska qodax tirmi doonaan runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay soo dhawaada culimo waa gobolkiinni baad timaadeen magaaladiinni baad timaadeen waxaan ka tacsiyadeynaynaa geerida ku timi xaaska sheekha waxaan leenahay samir yeeman Allah inaga siiyo saadiqa waxaan ku soo dhaweynaynaa culimada ay hogaaminayaan laba maxamed waxaan leenahay ku soo dhawaada degmada Ceergaabo waa munaasabadan way ka duwan tahay munaasabadii hore nasiib baan u yeelateen in idinka maadaama idinku aan siyaasad u socon in idin halkan leedii ku soo dhaweeyo sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil iyo Sheekh Maxamed Cali Biixi oo u mahad celiyay bulshadii soo dhaweysay aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa isa soo baxa kan ku aadan ma aha mid labadayadan shakhsi la fahantooda laakiin waxaad u soo baxdeen ciisaynta iyo karaameynta diinta islaamka aynu wada haysanno ilaahay subxaanahu wa tacaala idinkana allah idin ciseeyo allah idin karaameeyo allah idin sharfo ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka allah idinku biiriyo allah idinku daro ilaahay waxaynu ka baryaynaa beledkana ilaahay subxaanahu wa tacaala amni allah inooga dhigo amni iyo iimaan allah inagu taama allah ina siiyo islaam iyo salaamad taama allah ina siiyo sicir barar baa jira iyo ascaartu cirka isku shareertay
arsaaq waasica iyo jibcoonaan baynu ilaahay weydiisanay cirka madar khayr qabaynu ilaahay weydiisanay cid maanta adduun aanu ugu ballan qaadnay oo adduunkii maanta dartii u soo baxday ma joogto intaasoo baabuura oo shidaal ku soo baxay cid aanu annagu shidaalka ugu shubnay ma jirto waxa keliya waa u timaadeen waa ikraam kitaabka ilaahay ay ikraamaysaan ma aha shakhsiyaddayada waana ikraam qofka muslimkiihi markuu kitaabka ilaahay ikraamo waxay ka dhigan tahay in ilaahay la ikraamay marka ilaahay waxaan idinka baryayaa subxaanahu wa tacaala sidaa aad noo karaamayseen ilaahay karaamiya haybad allaha idin siiyo nin walba baahida uu leeyahay isagiiyo ilaahayba is-og waxaan ilaahay idinka baryayaa nin walba qabyadiisa inuu ilaahay u dhammaystiro urur ilaahay inoogu naxariisto allah inooga dhigo dembigeennana allaha dhaafo dembigii waalidiintana allaha dhaafo dembigii waalidiintana allaha dhaafo inta xun ee fasahaadka wadata ilaahay ha soo hadeey tacsidaa aad noo soo gudbiseenna waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayran kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf waliba way dhimanaysaa maanta innagaa joogna berrina innagaa laynagu tukan doonaayo layna tacsiyeyn doonaa taasi waa waxaan ku qanacsannahay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay soo dhowayntiinna ehelkaygii baa tihiin dadkaygii baa tihiin in badanoo ka mida ardaydayadii weeyaan